شاء الله قبلهنا I love you بسم الله الرحمن الرحيم وزارة هوانك حقوق الإنسان وزيرة كله حبناها برلمان كلبدا أقل حبناها كصعد هيئات عالمية بعد صحافة فنانين مرتي شرف تقييمها بدن هي مسؤوليين شعب كاسكو جرا وحن نكون سلامة يا نمان سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرحت أيي إيتهاي إنا كسو قيب قلو شروينهان أي اسكوغي مادين هوينك الصوماليات أو أي uga ayahooda iyo horumarkooda waxa sharaf gaar ah inaan maanta idin daafuro shirka isbuuciyadan waxay ahaayeen kuwa xanuun badan oo aad u tiiraanyo urku taalo ku reebay dhamaan shacabka Soomaaliyeed waxa muqdisho ka dhacay qarax geystay dhimasho dhaawac burbur hanti oo ay fuliyeen dhagar qabayaal u taagan gumaadka shacabka Soomaaliyeed inta dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacna Allah caafiyo sidoo kale waxa murugo leh in gabar yar oo Soomaaliyeed oo 12 jir ah ayaa fal aad u xun loo geystay Allah u naxariistay gabadheeni Caaisha Ilyas inta la farxumeeyay ayaa meedkeedii lagu soo hortuuray gurigeedii dadka sida naxariis la'aanta u dhibaateeyay gabadheena waa inaan kala kaashanaa sidii loo marin lahaa cadaaladda waa mas'uuliyad na wada saaran dhamaanteen inaan cod dheer ku diido falalka nuucan oo kala ah dalkeenu wuxuu leeyahay malaayiin Caaisha oo kale tacadigan oo kale dhamaanteen u diraya fariin argax iyo naxdin leh gabdhaheena oo si walba mustaqbalkeena u ah waa inaan fariin u dirnaa oo aynu ku qancinaa in ummadda Soomaaliyeed ay mar dambe ogolaan doonin foolxumadan oo kale dhacdo tacadiga loo geystay Caaisha waxa loo geystay dhamaanteen waanu diidnay haddii aan u guda galo muhiimadda shirka qaran ee haweenka Soomaaliyeed ay ugu tashanayaan masiirkooda xuquuqdooda iyo caqabadaha hortaagan waa shirweyne ku soo beegmay waqti loo baahnaa haweenka Soomaaliyeed waxay in muddo ah la daala dhacayeen horumarinta qoyskooda iyo qarankooda waxayna wajahayaan dhibaatooyin kala duwan kuwaasoo saameyn ku yeeshay haween badan hooyada Soomaaliyeed iyadoo daruufaysan ayay dhaxdu u xirataa inay wax tarto caruurteeda waa muhiim in laga hadlo arrimahan maxaa yeelay haddii arrimaha haweenka laga gaaro xalka ugu wanaagsan waxa hagaagaya danta qoys walba oo Soomaaliyeed iyo midda qarankaba maxaa yeelay hooyadu waa udub dhaxaadka qoyska haweenka Soomaaliyeed waa kuwa leh karti sharaf midnimo iyo aqoon waa haween alla ku manaystay dulqaad iyo awood ay ku kasba karaan haddii ay iskaashadaan oo isku geeyaan maankooda iyo awoodooda ay ku leeyihiin waxay si la mid leh uga soo qayb qaateen badbaadinta shacabka Soomaaliyeed xilliyadii adkaa ugana qayb qaadan karaan samata bixinta dadka iyo dalka
guulayso weliga sorry fanaan mi waxaa xaqiiqo ah in dumarka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed iyo adduunkaba u muujiyeen kartidooda iyo dhabar adeega ay u leeyihiin inay wax ku beeriyaan dib u dhiska dalkooda waa muhiim in qof walba hela xuquuqdiisa oo ahaan lahayd mid waxbarasho cadaalad xuquuq amni iyo mid siyaasadeed laakiin waxa intaba la heli karaa markii aan annaga isdhowrno qof walba uusan ku xadgudbin walaashiis ama walaalkiis waxaan jeclaan lahaa inaan idhaa marwooyin mudanayaal maanta waa maalinta haweenka mudanayaalan marwooyin waxaan shaki ku jirin inay jiraan maanta haween ama gabdho da'yar oo marxalad adag wax ku bartay laakiin maanta aanan helin xuquuqdooda sidoo kale waxaan shaki ku jirin inay jiraan haween Soomaaliyeed oo xadgudubyo badan la kulmay oo ay ugu weyn tahay kufsiga daryeel la'aanta iyo cadaalad darrida intaba waxa inoo keenay waa inaysan jirin midnimo iyo isku xirnaan maxaa yeelay dambiilaha dhibta geysta waxaa dhasho hooyo haddii ay wiilkeeda soo bandhigi lahayd inuu yahay dambiile oo ay xaqiri lahayd tacadigiisa waxaa ku badbaadi lahaa nafteeda iyo tan gabadheeda iyo tan ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba waxaan sidoo kale la xaqiri karin haweenka Soomaaliyeed horumarada la taaban karo ay ka gaareen ganacsiga iyo siyaasadda haweenku waxay leeyihiin qoonda aan hore loo ogolaan qoondadaas waxay ku heleen kadib markii ay mudoobeen oo ay soo bandhigeen rabitaankooda taasna waxay caddaynaysaa in midnimadu lagu heli karo wax badan waxaa sidoo kale shaki ku jirin in gabdhaheenu ay horumar ka gaareen waxbarashada waxaa badanaa aragnaa baryahan in dhankii waxbarashada ay u bateen dumarka taasna waxay muujinaysaa inaan mar walba noqono kuwa fahmi kara waxa wanaagsan maxaa yeelay aqoonyahanku waa indheer garadka caqabadaha soo wajaha naftiisa iyo tan walaalkiis horumarin kara quraanadkii waxaan dhiirigelin u dirayaa haweenka Soomaaliyeed dhammaantood waxaan ugu baaqayaa inay mudoobaan oo ay gacmaha isqabsadaan sidoo kale gabar walbo ixtiraamto xuquuqda iyo shaqada gabadha walaasheeda haddii aan is ixtiraamno waxaa fudud in qaab walaaltinimo iyo isjacayl ku dhisan yahay aan ku horumarin karno danteena dalkeena iyo dadkeena waxaan sidoo kale hambalyo hordhaca u dirayaa haweenka Soomaaliyeed maadaama ay nagu soo fool leedahay 8 Maarso oo ah maalintii haweenka waxaan si gaar ah bogaadin iyo ammaan u soo jeedinayaa wasiir Deeqa oo runtii isku keentay haweenka oo idil waxaana rajaynayaa inay ka sii shaqayn doonto isku xirkooda iyo horumarintooda anigana kamarwa ahaan waxaan diyaar u ahay inaan idin garab istaago dadaalkiina qoysku waa aasaaska bulshada hooyaduna waa geedka ugu adag ee hooskiisa iyo mirihiisa lagu nafaco geedkaas nacfiga badan leh waa inaan ku waraabinaa naxariis ixtiraam taageero iyo garab istaag ma ahan inaan weligeyn marna ogolaano inay cidigoyso geedkaas maadaama aanu ka wada tirsanahay maasha Allah waxaan rabaa hal dardaaran oo 3 walxood inaad tusaaleeyo mid waa talo wadaag hala yeesho gabdhuhu waa inay tashadaan isku tashadaan talabaad tusaale walaalaha wala tusaaleeyaa walaalka wixii fiican tusaale gabdhahan u jeedaa saddexaad way qaraar tahay waxa weeye tanaasul
تناسلك وقرار يهي لكن والله صبرا اسو تناسلا اسو الصبرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته